asxaabta raalliga naqda qadka ayaa igu xun marka inta badan talooyinkii ayaan wadaa marka talooyinkana waxa ay ku saabsan yihiin marka inta badan dadka qaar way ka dharagsan yihiin halka qaar kale ay la daldhacayaan marka dhibaatadan talooyinka marka sidaan horeba idinkugu sheegay waxaa ka mid ahaa inaad iska xirtid ogeysiisyada iyagoo marka iswada ama la yiraahdo afka qalaad automatic notifications waxaa sidoo kale tallaabada kale ah iska xir marka soo dejinta iyada iswada automatic downloadka sawirada iyo fiidiyoada ku soo dhaca WhatsApp-ka kana dhig teleefankaaga in uu soo in teleefankaagu uu noqdo mid yacni aad adiga xukumayso oo aad markii wifi-ga aad joogto aad wax soo degsan karto marka inta kalena inaad iska ilaaliso oo kale sida aad ku yareenso lacagta faraha badan ee kaaga baxda marka internetka cusboonaysiinta ama updating waxa aad ka dhigtaa in ay shaqeyn marka aad internetkaagu ama kaarkaaga aad adiga ka isticmaalayso inaysan shaqeyn oo markii aad ka isticmaalayso tusaale ahaan wifi-ga oo kale inaad markaa furato oo wax kastoo update aad ku samayso iyo sidoo kale talada kale oo ah inaad kayd samaysato ama kaydsato ama save aad samayso bogga internetka markaad booqato oo kale YouTube oo kale waxaad daawanaysaa waxyaabo filimaan ama waxaas oo kale marka waxaa loo baahan yahay inaad waxaas aasaarto inaad save samaysato markaa save samaysato waxay kaa saacidaysaa hadhow markii aadan qad haysan in adigu aad si fiican u daawato oo aysan waxba kaaga bixin markaasna waxaa samaynaysaa markii aad internetkii wifi-ga joogto ayaad waxaasi save garaysanaysaa oo aad marka samaynaysaa inaad daawato waqti kale oo aadan lacag iyo qarashna aysan kaaga bixinin marka waxaad iska ilaalisaa marka barnaamijyada aadan isticmaalin ee internetka inaad iska ilaalisaa ayaa fiican oo sababtoo ah barnaamijyada aadan internetka ka isticmaalin waxay muhiim tahay inaad iska joojiso oo waxa ay ka yareynaysaa lacagta kaaga baxaysa internetka kaarkaaga ama sim kaarka marka waxaad kaloo inaad ku dadaasho ay tahay marka inaad la socoto teleefankaaga waxaa jira teleefano badan oo iyagu isku dira marka update marka inaad iska ilaaliso arrinta inaad ka digtoonaato marka in teleefankaaga gacanta aad ka isticmaasho barnaamijyada culus ee internetka aad u badan yahay waxaa jira barnaamijyo internetka uu aad ugu badan yahay ama aad u lacag badan uu ku bixinayo marka kuwaas marka sidoo kale Android-ka iyo iOS-ka ayaa ka mid ah marka inta badan waxaa fiican inaad ku isticmaasho dhanka iyo wifi-ga inkastoo talooyinka ay yihiin kuwo marka muujinaya inaad adigu inta badan waxyaabaha fiidiyoada ama barnaamijyada iyaga soo dejinaya inta badan aad ku isticmaasho wifi-ga markaad joogto kaarkaaga ama waliba aan yiraahdee sim kaarkaaga oo inta badan dhalinta lacag badan kaga baxda marka waxyaabahaas iyo talooyin kale oo hadda ay ka mid yihiin inaad marka iska masaxdo barnaamijyada aadan u baahnayn oo aadan gelin oo kuugu jira teleefankaaga oo inta badan qadka gaar ahaan lacagta kuugu bixaysa ama lacagta ku bixaysa waxaa jirta dhalinta in ay ugu jirto barnaamijyo aysan isticmaalin haddana qad u baahan lacagna ay ku bixayso marka kuwaas oo kale inaad iska xirta ayaa habboon bogga Facebookga iyo Instagramka ka jooji marka video waxaa jira marka Facebook marka bogagga marka Facebook iyo Instagramka marka waxaad ku aragtaa oo aan shaki ku jirin in yacni fiidiyoya la soo dhigo fiidiyoyaasna iyaga ayaa isdaaraya marka adigoo aan daarin iyaga isdaaraya marka kuwaas oo kale waxaa ku baxaya lacag fara badan oo adigana kugu reebaya yaab iyo fajac marka waxaad kaga fogaan kartaa marka fiidiyodaas oo kale inaad iska ilaaliso oo aad iska damiso si aysan lacag fara badan kaaga bixin laakiin markii aad wifi joogto taasi waa caadi oo saameyn ma laha marka inta badan talooyinka waxay ku soo aruurayaan inaad ilaaliso si marka talooyinkaas iyo talooyin kale oo inta badan dhalinta qaar iyaga ogsoon yihiin ayaa jira waxaana kusoo koobayaa marka in aad xakamayso markii aad isticmaalayso kaarkaaga ama aad ka isticmaalayso sim kaarkaaga inta badanna uu noqdo mid aad u isticmaasho marka aad joogto wifi-ga guud ahaan waa mahadsantihiin asxaabta inkastoo talooyinkayga ay intaa yihiin oo aan ka hadlay intaan hayay waana mahadsantihiin inta barnaamijkan